ayo fahansan wixii laynaga rabay ilaahay diintiisa ku sheegayna fahansan wa zaman oo aad iyo aad u murgayo oo aad u xanuunsanayo oo aad iyo aad u qandhanayo oo wax maskaxdiisa ka weyni haysto waay wa zaman aan dhihi karno wuxuu ka mid yahay azmiinadii nabigeenu tilmaamay sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama fi sahih muslim qiyaamadu dhici maysa buu nabi maxamed ku dhaartay sallallahu alayhi wasallam ilaa uu ruuxu soo maro ruux dhintay qabrigii markaasuu ku galgelimaysanayaa wuu ismarmarinayaa waa ku rafanayaa markaasuu wuxuu leeyahay shalaytee qabrigan ruuxa ku jira maxaan u noqon waayey maxaan hadda ka hor isaga dhiman waayey nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam dhimashada uu tamaninayo ma aha diin darteed ma aha laysa bihi diin fi riwaayati dayn culaysku dhanka diinta ma aha culaysku ma aha ilaahay kulankiisa ma aha laakiin culaysku wuxuu ka haystaa fitan iyo imtixaanaad iyo adduunka waxaa ku haysta wuxuu xamili la'yahay markaasuu wuxuu leeyahay maxaan hadda ka hor isaga dhiman waayey su-aashu waxay tahay horta ma dareensannahay xaalka jira wadciga ma fahansannahay haddaynu fahansannahayna su-aal baa imaanaysa jidkii lagaga bixi lahaa waa xaggee see loo badbaadaa see loo nabadgalaa fitankan sidee looga adoo bad qaba ama u dhimataa ama uga baxdaa jawaabtu si koobani waxa weeye dariiq kaloo looga baxa ma laha falsafad kaloo kaa saari kartana ma jirto dadaal kaloo fitanka lagaga badbaadana ma jirto ilaa in la raaco wixii ilaahay soo dejiyey nebi maxamedna laga dhaxlay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ninkii meel kala moodaayey lafcad buu toobin ku hayaa maalin uusan talag gacan ugu jirin buuna farta dhexda ka qaniini doonaa awalan marka ugu horeysa mar walba la tacaal iimaankaaga inaad cusboonaysiiso waxaa yeele nabigeenu sal alla alay wasalam wuxuu tilmaamay fitanka culusi markay dhacaan isku day inay geeridu kuu timaado adigoo ilaahay iyo maalinta aakhira rumaysan iimaanka ku mitid mabaadida caqiidada saxda ku mitid ayada ku dhag ha kuu timaado tii alle adigoo mabda'a ku dhagan weliba sida nabigu inoo sheegay iimaanku waa duugoobaaya kolba cusboonaysii kana warhay iimaankaaga lianna musiibada ruuxa muslimkaa waxay ka asiibtaa marka ugu horrey kaga dhacdaa hoosu dhac iimaankiisa ku yimaada halkaasaa laga galaa kadibna way la durugtaa macaasidiiyo dunuubtay la aadaa ilaa marka ugu dambaysa gaalnimo iyo kufri ay la aado xaggee ka bilaabatay iimaankaagaa hoosu dhacay waad dareemi weyday waad kabi weyday waad cusboonaysiin weyday markaasay kula durugtay